أبشروا 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 إسلامنا إسلامنا فداء إسلامنا حضارة إسلامنا عطاء إسلامنا إسلامنا فداء سيف على رقاب ووقفي كنا داقي كل كاوين يا مساجد يا مركز كبا إنه هذه دونا وهي حفلة على وجودهم وحويان اسم قيل حسين ومعلنك صوص على تعب كدريم إنسان حفلة الختام وحفلة العرس جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأنام إلا إذا كان بكلمة فلا تدرك دنيا ثم سنوان كتابنا كسره الله بسم الله أنا أمسح رأيي حتى ما يعشق مرة دي سدود بلاد بلا واحد فيني هو عندي ذاتك وين مال ربنا يا علي الله يقبلها وحققي بعزمك الآمال بعزمك الآمال Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Jesus was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Moses was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Abraham was his messenger. Allah, la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaa halkan maanta inooga dhici doonta xaflad qalin jabin ah oo arday lagu barayo qur-aanka kariimka ah. xafladaas oo ay soo qaban qaabiyeen markaska Ubay ibn Kacab al-Icdaadi al-Mucallimiin. waxaa la diyaarinaya waxaan u malaynayaa waa mucallimiin sidaad ka wada dheehanaysaan halka waxaan ku furfuran doonaa sidii caadadaba inoo ahayd haddii eebba idinkeeda leeyahay aayadaha qur-aanka kariimka oo inoo akhrin doono arday ka mid ah ardayda محمد عبد الكريم عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه آيات مهتين هاي محمد عبد الكريم جزاك الله خير لنا هاي إمكان وحنا كسر دوينا شيخ داهر خليف. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء. انت تسكوا intaanan kelimadayda aanan u gelin waxaa iyana farxad weyn
iyo wax ilaahay subxaana wa tacaala mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar kumaad intaba loogu mahadiyaa munaasabadda tan aynu maanta joogno oo sida aad arkaysaan aynu maanta joogno gebagabadii iyo waxa weeye qalinjabintii ardaydii macallimiinta loo diyaarinayey oo muddada sanadkaa lagu tababarayay markiska Ubay ibn Kacab ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala ina soo gaadhsiiyey inagana soo qayb geliyey waxaa sidoo kale mudan in la mahadiyo dadkii gacanta ka geystay oo hirgeliyey oo fikrad ku hirgeliyey oo dhaqaale ku hirgeliyey oo dadaal kale ku hirgeliyey oo ay markaa waxa weeye ugu horeeyo Sheekh Siciid oo markaa waxa weeye dadkii ugu badnaa ee waqtiga iyo juhdiga badan ku bixiyey inkastoo aanan wada tirin karin dadkaas guud ahaan waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka idinku daro waadna ku mahadsantihiin khayrka aad qabateen salaam dadkaasi waa dadka qur'aanka baraya ama baranaya buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii qur'aanka baranaya ama baranaya qofkii qur'aanka baraya dadka ama baranaya waa qofka ugu khayr badan ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam ahlullaahi haddii la idlaaqo oo la yidhaahdo yaa ehelka ilaahay waxa weeye waa ahlulqur'aan waa dadka qur'aanka yaqaana oo ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka uu siiyey oo uu ku manaystay taasi markaa waxay muujinaysaa ama ay qalbigeenna ku soo ridaysaa waxaa munaasab ah oo laynooga baahan yahay innaga waxaa suurtagal ah inaana inoo wada suurtogelin kulligeen inaynu macallimiin iyo arday wada noqonno ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka qaybqaybiya fursaddaas inaad ku dadaasho aad bay u fiican tahay inaad waxaad noqotaa maxay mid markaa waxa weeye qur'aankii baranaya iyo mid baraya iyo mid u kaalmaynaya iyo mid jecel anigu intaan ogahay deegaamo fara badan baan ogahay oo dhulkii ah oo aan alif laga dhigin alif macallin aroortii carruurta u jarmaado wax u xaqiiqaa uusan jirin dadka wax u bari lahaa dadka innaga weeye haddii qof waliba markaa intiisa iskaga urursado ilaahay subxaana wa tacaala wayna weydiin doonaa waa laynagala xisaabtamayaa waayo xaq baa la isku leeyahay xaq qaraabanimaa la isku leeyahay mid islaamtinimaa la isku leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala si gaar ah ayuu qofka qaraabadiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jazaakum allahu khayr aad iyo aad buu mahadsan yahay sheekh daahir kelmadda wacdiga ilaahay ha inagu anfaco markana waxaan u yeeli doonaa maamulaha markaska sheekh saciid axmed calan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأحبائي وهرين وحان إذن كل سلام يا سلامتا قالقا يا إسلامك إلهي نوسو دجي سبحانه وتعالى تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام دبديد انت أنا وحكا لو قد بين وحان مهدنا يا مهد aan koobnayn oo aan dhammaad lahayn oo aan dhinaansho ahayn oo adduun iyo aakhiraba gaadha
وأنت إلهي أبوري عدد كوضا لك ربي سبحانه وتعالى الله إنه سهلي كلان كان إيو لما يستيرك إنه لما يستيرنو شغالي عسليد مدد السنة كاها أينو قعنتا كوهيني تاسو أهيد إنه سو صارو معلمين تاسو باهي ترى دادكا أينو كدلاني سيدا شيخ داهر شاقي مقالوينكا يدقموينكا يتشوغان aanin badan oo ka mid ah maqaar badan aan laga helin macallin aroortii intuu soo kaco oo soo kacaan xaraf dadka markaa u dhigaan laga helin arintaas ilaahay inoo suurta geliyay ayaan ku mahadinayaa subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa dhammaan dadka walaalaha ah ee xafladdan ka soo qayb galay iyagoon si aan kala qaad lahayn aan ugu mahad celinayo وحنا أدعوكم مهد عليا جمعية النور لخدمة القرآن الكريم وينا كشقيسي امتحانتي شهادوين كقدون سيسي معلمين تضميستي دوران وحن إن شاء الله تعالى مركا ربا إنا نبيسيو واربحين هوشة كسابسا waxa keenay sida wax loo qabtay cid wax qabatay cid wax loo qabtay iyo waxa aynu doonayno mustaqbalkeena hugsano insha Allah ta'ala way marka warka la helaa talada la helaa waa khasabeen warbixinta iska dhageysano insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala marka ugu horeysa walaalayaal hindisaha hawsha in la qabto waxa keenay baahidaas oo aanu ku soo arnay deegaankii markaanu tagnay ilaa yaari cadeeye ilaa jiidali ilaa damala xagare ilaa fadhigaab ilaa xalin ilaa fallidhiyaale baahida qur'aan ee ka taagan iyo intaa ka dhaxaysaba markaanu daraasaynay dadkii la kulannay dadka meesha jooga la shiray waxaa noo soo baxday inay khasab tahay in loo helo dadka waxa ugu muhiimsan ee bini aadamku u baahan yahay oo ah wax kitaabka ilaahay yacni bara oo markaa waxa weye ardayda markaa fahamsiiya dadkaba sidaa daraaddeed baahidaasaa keentay hindisahan waxaana markaan isku daynay inaanu ka fekerno xarun lagu ururiyo arday laga soo kaxeeyo tuulada si berri loogu celiyo tuulada laga keeno la tababaro aqoontii lagu shubo tuulada lagu celiyo taasoo markaa u baahnayd wax kastoo bini aadan u baahan yahay waxay u baahnayd guri waxay u baahnayd nolol waxay u baahnayd gogol waxay u baahnayd daawo waxay u baahnayd waxa weeyaan معلمين شغالة وحكسو وحوي بنادم وبعضه إلهي نبو ترصارينا كنا حساب تمينا ذاتك محسنين تا يدنين يا قرآن كريم كا يددك دبعتضع يستنا كحن صنيا أيان نبقى عن صنعنا نهوشي آنو بلونه فإذا عزمت فتوكل على الله انت أنا نهوش بلابين مدافر بلوده ayaanu abaabulkeeda wadnay oo aanu markaa isku daynay inaanu markaa helno ama ha haato xulka macallimiinta ama ha haato waxa weeye guriga iyo gogoshiisa iyo hawshiisa alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay waa suurto geliyay subxaanahu wa tacaala hawshaa waxaa si dhaba isaga kaashaday markii hore bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda xooggana saaray hablaha hortiina fadhiya ee hooyooyinka ah ee duruuftooda ilaahay og yahay subxaanahu wa tacaala waxaa markaa iyana garab noo noqday hablaha jooga magaalada boosaaso ee ganacsatada ah ee ka soo jeeda deegaanka oo iyana naga caawiyey gogosha aanu ardayda markaa waxa weye u dhigaynay waxaa kaalin muhiima nagala qaatay
مامو إسرقيل حسين جمعية أم سلمة الخيرية في بريطانيا وإيانا هذين نقطة محاضرات أيوسو قشاب لها يدي رجلين يمال انت بقى أنا قلهرين أود إذا ما مدى ويلك إلى بركة سبحانه وتعالى هذا ما هو ويان أرضية وحالي سكاكيني مقالوين كمركان ورونيني هوري وعنو كسو حريني مقالة داري عدية لفويني حضن طبعا دريقي سوين هول كالعد عرولي فقيقة فقيف اليوي أوربوغيس لا سعردن حبالة عمارة قرفلي دب غرح بيا قدود دقمد الأسعارات بود عدي كولال تليح حالين دبغ عم السنجيف دم الله حجره قد آلو تكرر تشيدلي دقمد عرقابو أردا سرمايو فديقاب دم العبيدو بصبصة فالي ريالي بقع عن برا لا بأس مقالة هو بقع عن برا بعد كل انت بدل لو يغانا ومقالة لا بأس الأورنج الله ونحرسته marka degmooyinka tuulooyinka ama magaalooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka ayaanu ka soo kaxaynay ardayda runtii waxa weeye waa 230 degmo iyo 230 tuulo iyo degmo isugu jira weey waxa jira iyana mar dambe oo aanu arday meelaha qaarkood ay daruuri noqotay inaan iyana waxa weeyaan ku daray kadib markaanu aragnay inay munaasib tahay ragaasi ma wada dhamaysan dadkana marka dee wax loo wada bilaabo hal mar waa kala harayaan mid xanuun ku hara mid la qabsan waaye iyo mid akhlaaq ahaan wala isku hara intaba waxaa ku guulaystay 22 magaalo inay arday u soo baxdo alxamdulilah rabbil caalamiin oo imaanta shahaadooyinka halka ay ku qaataan caqabadihii ugu adkaa ee markaanu hawsha bilaabayna naga hor yimi waxay ahayd kow inay dadku shaki badan ka muujiyeen dadka kale aanu kaxaynayno oo aanu leenahay lacag lagama rabo oo aanu leenahay wuxuuda annagaa qabna buugga iyo kitaabka iyo qalinka annagaa siinayna cuntada annagaa siinayna markiiba waxaa la yidhi oo naloo geliyay caalamka ama dad badan ka hadleen waxaa lagu wadaa al-shabaab iyo waa hawlo kale loo wataa hawshaasi waxaa dhacday xaqiiq ahaan in xitaa markaska inta qof yimi uu kala baxo yiraahdo miyaad u haystaan maaga ii daay gacanta jiito soo arki maysa waa iska nasiib maanta fiicnaan inuu arko qodobka labaad waxyaabaha caqabaadka nagu ah waxaa ka mid ah afkaarta dadka oo arrintan in badan ay ka mid ay walaacsanaayeen ay lahaayeen sidee baa 30 qof oo dhalinyaro ah oo cunayo cabaya qada iyo quraac iyo casho iyo casariya iyo wax walba u baahan iyo saabuun iyo qubays sidee bay u dhici kartaa in loo kafaalo qaato macquul ma aha arrintaasna dad badan ayaa waxay keeneen inay runtii wax weeyaan naga walaacaan ama arrinta ay yiraahdaan wax soconaya ma aha waxyaabaha kale warka waxa weeyaan dadka qaar ka hadlayeen waxay ahayd iyadoo aan isleeyahay runtii iyadoo fikrad saxaab ee u dhoweyd haddii la heli karo waxay ahayd war intaan waxba la bilaabin horta lacagta ha la ururiyo meel ha lagu shubo taana waaqica diidayay bini aadamku waxay arkaan bay wax ku bixiyaan laakiin waxaasaan qaban doonaa yaa oo adan waxba aan qaban qofku kaa siisan maayo laakiin maantay hortiina taallaa dadkii ha kelmadda lahaa mar haddee maanta ay muuqato wixii ay geedkii u bislaaday midhihiina hortiina ay ka muuqdaan taasi maantay taallaa way alxamdulilah rabbil caalamiin sidaas oo kale waxyaabaha nagu yara taagnaa waxaa ka mid a dadka qaarna runtii ay waxyaabaha aan saxda ahayn ka fidiyeen inaydan wixiinu waa qabyaalad baad ku shaqaynaysaa war annagu marka ugu horaysa kitaab ilaahay baanu tuulo dad jooga oo ehela oo aan macallin haysan inaan intaan u soo kaxeeyo aan kii la midka ah intaan uga qaado iraado war kan waxsi tegmadii waxa ku tuuladii ha kaa kaafiyeen qabyaaladu waa reerkaaga iyo dadkaagu xaq darro iyo dulmi iyo xaaraad ugu kaalmayso inaad sharciga fahantaan baan wanaagsan sidani waa sida la rabo in wax wanaagsan iyo khayrka iyo diinta la isugu kaalmayso wa tacaawanu cala albirri
والتقوى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأنذر عشيرتك الأقربين. نبي عليه الصلاة والسلام مركي يقول فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. يوم مركي يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. نبي صلى الله عليه وسلم ذاتك يقف إله قبل صلى الله عليه وسلم. يعني وهو إيان إن ذاتك قفك وهو إيان عالم كوريان دعوة جارسينه قفك سانو قري سو كسر بلابه أو حافظ هذه قري هجاجسو أو كقولي قري ساجاتيو أو دمر الله هجاجيو أو قول كلا وده هجاجيو أو ذلك لا يسوي ولا يمادو سيدا صورة يا شرعي قول كاسل سيدا صوها runtii waxyaabaha markaa waxa weeyaan aynu markaa haddeer aynu yugsanayno intaynaan u gudbin horta waa inaan sheegaa yani waxa weeyaan maxaa kharasha oo hawshatan muddada sanadka ah ku baxay. waxaa ku baxay kharashkaasoo ahaa gogol, kharashkaasoo ahaa weel iyo wiciyad, kharashkaasoo ahaa weelashii taangiyadii biyaha, kharashkaasoo ku baxay qalabayntii kale ee ay u baahnaa waxbarashadu, raashinkii muddada iyo noloshii, adeegii waxa weeye xoolihii noolaa, dharkii ardayda iyo wixii la mid ah 35,267 oo dollar. 35,267 dollar ayaa ku baxay. 35,267 taasoo inta badan inta dambe 5,267 waxay u badnayd kharashaadka diyaarinta iyo qalabaynta iyo wixii la mid. waa lacag runtii aad u kooban. dad badan markaan u sheegnay aad bay ula yaabeen. 30 arday oo bal reerkaaga keliya bishii iyo sanadkii ku dhufa billahi calaykum waxaa runtii u kooban. alxamdulillahi rabbil caalamiin. maxaanu higsanaynaa mustaqbalka insha allah? waxaanu higsanaynaa insha allahu tacaala in ardaydatan aanu ku celino tuulooyinkii ay ka yimaadeen. ciddii markaa waxa weeyaan weliba gaar ahaan dee u diyaara oo la raba in ardaygii dee layska diri maayo. waxaa la rabaa ardaygii dadkii deegaanka ka soo jeeday inay arday walba gacanta qabsadaan oo iyagu la wareegaan oo ay markaska kala wareegaan oo ay la wareegaan oo ay qabsadaan oo ardayga ay ku sallimaan degmadii lana habeeyaan sidii uu waxbarasho uga bilaabi lahaa magaaladii. taasi waa qodobka koobaad weeyaan oo aan rabno insha allahu tacaala in la soo saaro. waxaan ugu talagalnay ardayda tan 30ka ah in ardaygiiba uu soo saaro 30 arday mustaqbalka. ardaygii 30 arday marka 30 lagu dhifto 30 waa intee? waa 900 soo maaha. ardaygaasi hadduu 30 arday ii soo saaro faa'iid baynu insha allahu tacaala. 900 oo qof oo quraanka ilaahay yaqaana markay ku soo baxaan dhulku waa hagaagaya biidnillahi tacaala. sidaas oo kale ardayda hindisaha iyagu labaad waxa weeye ardayda kuwa ugu sarreeya inaanu sii siino 5 arday ugu sarreeya inaanu geyno maraakista qiraa'aadka quraanka lagu sii xifdiyo si ay iyagu ay u noqdaan mustaqbalka macallimiintii maraakista noocan oo kale gacanta ku qaban lahaa oo hadhowta iyagu aqoon ka badan aqoonta ay ardaydu hayaan sidii insha allahu tacaala iyaguna ay u keeni lahaayeen. waxaanu kaloo noo qorshaysan in la qabto dafcad labaad haddii ilaahay suurto geliyo taasoo ah 30 arday ama 32 arday iyadoo aanu ku xidhi doonno shuruudo adag. doorkii hore shuruudo adag kuma aanan xidhayn laakiin doorkan waxaanu ku xidhi doonaa shuruudo adag taasoo ah ardayga la keenayo inay dadka deegaanka iyo tuulada jooga iyagu iska soo xulaan oo iyagu ay wax way arday ay ku kalsoon yihiin oo ilaa iyo magaalada odayaasheeda iyo culimadeedu ay ku kalsoon yihiin oo hadhow aan cararin ama hadhowta aan meesha wax weeye waxba baran waayin ma rabno. ardaydaas aan la soo xuli doonona shuruudaha iyo kuwo kale oo kale ayaa u yaalla insha allahu tacaala. waxaa kaloo hindisaha iyaga mustaqbalka u yahay in laga baxo kirada ardaydu ay ku jiraan. kirada ardaydu ay ku jiraan ama guri dee reer leeyahay berri buu u baahan karaa. mashruucanna mashruuc khayri oo rabo inuu socdo wey. waxaan u baahannahay markaa inaynu helno dhul aynu u dhisno ardayda
ومركزة ومساجد كيلة هذا أرضيد مدة سنة كا وحكو براني وكنت كان ينقل وين وكم إذا قولك بريقة الحمد لله رب العالمين لكن وحا ضروري إلا له مسجد أرضيد أي كل عبادستان كنا برتان هي مركز إليه ويسكد حياله إن شاء الله تعالى والهلية بإذن الله تعالى أن سيدا صوكالة وحان ردسينا إن شاء الله تعالى أن قضب مهمة أوه خرج كأرضيدا كوبا حيا بيش سنة كأسوس عضا وعن كوكي أصني بيشي لبكوريا $500 ومعلمينتا وكرادة جوريجا وكورنتادا وإنترنتكا وأبلغ شغالها يوحي نولا أرضيدا سيرو بعين صدق $100 بيشي لبكوريا $500 وحاضو كوبان وقف كسارنتي ودريمي كريسيدي ويرتاي إن شاء الله تعالى أنا والدنيا كمربنو ومال كمربنو وأنت كمربنو وعويان حقيقة وحاها مركز هذا كفتمو مركز كأرضيدا مالن والبوحة يمين شري دد بيده على كياني دد مقالو دوني إلا دقل عليمان تضوط إن اليردي ولو تغلايا وتهريبيا وحوي خريبيا وواحد دد كليا من أرضيدا سداد بلاد القرآن كوف ديه سنة كا ده وحوي خميسة ينت بدلوتي جماعة 10 لما دكتو يو إنك سوي خميسة يدقنايين هذا إيدا كل شري فصحيا كل شري عم بدنين وحوي أرضية مركز تقول إن سداد بلاد واحد من أي كتاب كلاهي أي كوف ديه كتاب كلاهي أي كوف ديه الحمد لله رب العالمين أرضيداس أنو هنتي مركا أنو قبنا إنك معلومات واجوجان وحقران كوعقب بلونايم ضد عادو يربي هاي وأنت بدنا أنو صحيح العرب كودو أما الله كودو فربدي هاي لكن مدة سنة كعيا أرضيداس جمعها أنت خطبة اللي تسود جيسني كلية فصحاي وقلت إنه مخاطبة كائن المين ما نسود عشري وما نم أقرين هبين إيا مالين كودي هبين إنها تضوط القرآن بيحتاج تعترس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحنسرع السنة يا إن شاء الله تعالى يذكر عليها شهادوينك سينا أرضينا قدمنا هامر إن شاء الله تعالى وعنو يرى يا مركب Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur. أرضك الله عبد الفتاح أحمد محمود دارات. Allahu yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur. Allah is Rahim. Allah is the one who loves the muhsinin. أرضي ويرى رقي ماشي حاضرين وقرأ درجات درجوك في عناء موليد عبد الرزاق أحمد فرح ما شاء الله بابا أرضي إنه ويرى ما شاء الله سليمان حسين عبدي حسن Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu Yuhib. عبد الله عبد السلام عمر جامع أحمد عبد جامع حبيبي أسود وادو ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafur, Allah is Rahim. سليمان جبريل is the one who loves the muhsinin. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafur, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafur, Allah is Rahim. عبد الوالي حسن محمد The one who loves the muhsin. هذوينكي أرضيدا وأنا شهادة شرعية وأصميسي جمعية النور لخدمة القرآن الكريم وجمعية
قرآنك كريم كمنطقة مقابل سنة وجمعية شرعية سنة سادرات أرضيدو وعائلتي كران قوب كستا ومركا وحويان أيوة بعضان وعاد فرحتي قوين يقوها إن أنا هلكن كوب دونسيو مرويس كما صبحان هذا ركبيرين معلمينتي بهراي أرضية تنصوص صاري آدي نقو قالية وعن قوة القدنو كلانا قرنين إلى أن نعلم ويانا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم وعرضوا رئيسين يا الأستاذ الفاضل والشيخ الكريم والداعي عبد الوهاب الشيخ معلم عبد الوهاب الشيخ محمد نور حفظه الله تعالى ورعاه وجعل الجنة مثواه ومعلم كي صوص صاري تعبك الدريم إنسان الدنيا آخرة والله بركيه يا صوصار أرضيدا تربية توصية توجيهية والشيخ عبد الله أسكر آدم حفظه الله تعالى ورعاه وجعل الجنة مثواه حسود وادو جزاك الله خيرا معانك ودعية سوينا ودعية عاو أرس قليا صلاة الله وسلام وهذه بشارة ثانية لمدي حفلة بانسكو باغني حفلة الختام وحفلة العرس جزاكم الله خيرا ما شاء الله وهذه من ثمرة المعهد ما شاء الله الداعيات قدقي وهو يوينكاها ويلكي قبله وحويان هوشا كشقيني هو يوينكاها وقت كان أموري إن شاء الله تعالى ينا عن قدوسية شهادة أنا واحد مودا هلكا هذا قبله مسلو قاري كرامات مودا وأقول في عنا الله عيد إن شهادة وحوي قعنت كساره لكن وحاول قدوم إياه شيخ داهر قدود جزاك الله خيرا ويوينكا يوم تاسي ودليه إن شاء الله وعن كلو هلكا كان عن دوني أن أكون قدوسية شهادة شرف آذو قالية طالبات المعاهد الشرعية في لاسعانو وأرضيدا قبلها يعكبت المعاهد الشرعية معاهد الفرقان ومعهد عائشة ومعهد خديجة ويقونها قبله أن مرقرة كقابن هوشة معهد كي أرضيدا يعني نلقرب هيان وعوقبني إن شاء الله تعالى شيخ داد وإن شاء الله تعالى أن هالكر كان يانا أن كقدوسين يا شهادة وقالية شهادة داس وعايسكالة الأم الفاضلة الداعية إسر جيل حسين حفظها الله ورعاها وجعل الجنة مثواها محاضرات بعضنا وكذا شيء إسر جيل وحوق قدومي إن شاء الله تعالى ومثلنا لتشوقا نور حسن وهو هيريو كاسكيهين إن شاء الله تعالى كسر دو حاج نور تعال سؤال لي إنه كسر قريب قالوا وهو حفلة قدومه وحويان إسر جيل حسين ويسكيه غير بريطانيا أنا في شغب وذي إن شاء الله تعالى الله ما شاء الله وهي هذي وإن شاء الله تعالى هلك كان ربعنا كقدوسيو شركة التلصوم للاتصالات ونوتشوجو مسؤول كذي يقدومي هذي شيخ عبد الرزاق أحمد ورسمه وأنه هذا مركز أبي بن كعب لإعداد المعلمين أن وارن حق إليهين دوانتي يحريركي يوحتركي أي كجيستي المركز كا وعلينا جزاكم الله خيرا بارك الله ولي فارو لفنا كما قد وقتي وأنا حيي أوجد لكن في برو إمك waxaan kusoo dhaweynayaa marti sharafta gudoomiyaha bishaas daakir axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على رسول الله حنو يا هذا البدن ما هارين وهذا الميال وحنو يا لو الدعاء يطلب وما ينطها لا وحنو يا لون بيرتها لروس وشري إلى سوق ويي سنو علي لهين وقتي أي تجي لهين مرها سنة أنا خسارين وطلع ينطها لا هذا قلب كلابات إن ندعي إنه سعيد وكاها هوشة فرمود كاها هويك حق ما فرديا إلى هاي خير هالسيو أنا وأنا أمسنا هاي وحاك رونا هدي ووضان وحدان هويك هالك فرديا إن هوشة كتيرين إن أنا وحبك دقاقين وحياب لي سدد بلاد يمرها عير خلي هوي وحنا لا هاي مهنقو وحنا لا يمرها ترى روت الله وكليه وحوي رجلو فرديا تمركي يا سعيد يا وحاك لودن توجا وحويان بينفع عنده وصوري سير كود دبنا وصو حريقين كونا أي برتي وقبل عبر هاي وايو نكى بركو وحبرتي حدو هالك كو هارو أو تبغى سميشي تجين وحلو وخسارة وين نكى وين تولد تجا وين تولد لو قلبية وقولي جيسلا لفرسال كلوديجا سال كوديجا يوديو حبوا بعنتا وفي يوم سال كلوديجا ومن عاودة قصدا أنا سعيد وحيد واحد يكسرنا صدنا شن هادو نبرو شن كليه هادو كبرو شن كليه هادو تولد كبرو وحوي وحوي الحمد لله رب العالمين شن قف حوي ببتشا سومالي لون صدق توني ببتري أو أسوأ لون شري بس أو بتري وأنا قال حسن وعلم بان الحين بس سومالي بتري فكر كذي شنين أو تولد بقول قيس توكتا كبرن مركب هذا الكبرين ما يو وحنلاقي هاي أن أنا ترى أقول منه وحكي كلام وصار معدين. أقول هالشيء مرتشرفت إنه وليكم كذا شرناية بدومية شركة التعرفين عبد الغني أو داير حاج حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت بدومية أنا هي مامرأة هاي بدومية هو خمين كله كنا ده صحيح. وحكلا رنتي حسيت مدن إنه عمل كأي سمايين ويهاي عمل آذ قيمة بدن وكتاب إلهي سبحانه وتعالى. وإلهي سبحانه وتعالى ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن كان ضدك وحكته سنيا كأوتوسيد بدن. ورنتي ومنهج إلهي سبحانه وتعالى وقلت لك علي عندهم كان إن لجوهجو ضدك عدة غرستا أي ليبانيسو رنتي ووحى الله وفرحه إدي فكر كالا هاي يعدي كشف هيسي آدبان رنتي وقوم هالنقينا وأنا أرين رنتي يا كضيشة أمضان نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وأذكرنا إنسان قيمه ودون كانوا لها إلى هاي نقطتي وحن رنتي هذا نية إذا أنت فريق صار علي رب قراءة أو دري إن الدين كتاب كإلهي صار بران أو للعيي سيدا وجمر وجودي waxay keentay inuu biladhan uu xabaaro dadkii ka dambeeyay falka oo markii dambe quraanka laga ilaahay kaga joojiyay inuu joojiyo yani ahamiyadda dadka xufaada ee diinta ilaahay kitaabka ilaahay barto ay leeyihiin ayay muujinaysaa qofka haddii diinta ilaahay la baro wuxuu helayaa mudma'iniina ala bidikri illaahi tadma'innu qulub ilaahay qofka marka diinta la baro deganaanshu helayaa dalkiisa inuu ku xasilo helayaa marka waalidiinta waxaan runtii ku dhiirin lahaa inay dadkooda diinta baraan maadigiina waa loo baahan yahay runtii waxaan dhahaa qofka diinta islaamka la bartaa maadigana bartaa waa laba qof qofka barta diinta ilaahayna waa qof dhammaystiran because qofkani hadduu aakhiro garanayo ilaahay subxaana watacaala si uga boqo dadka islaamka waxay ka mutaysan yihiin waa qof dhammaystiran oo ilaahay subxaana watacaala waajibkiisa gudanayo qofkan diinta ilaahay aqoon baan odhan karaa waxaa la odhan karaa waa haaf qofkana waxa u fiican wuxuu horumarsado wax ka fiican ma jiraan runtii waxaan odhan lahaa meelaha u baahan dadku inay wax ku bixiyaan oo ay isgarab taagaan waa halkan oo kale runtii waxaan odhan lahaa anaan iska reebayn oo insha allah isku dayay inaan wanka iyo tuuga iyo saddexdaba aan u galo oo ay dantayda tahay inaan wax sadaqadaysto meelahaan oo kale aan wax ku bixinno aan isgarab taagno runtii arrintaasi aad iyo aad bay aan ugu farxay iina soo jiidatay taasaan odhan lahaa hadalka kolley dad badan baa sugaya waqtiguna waa iska cidhiidhi mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay dadkii hawshan ka qayb qaatay ardaydaa soo saaray
ilaahay camalkooda khaalis ha uga dhigo ha barakeeyo annana kuwii ku dayda ha naga dhigo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. number one waxaan isu taagay in aan ugu mahad celiyo dhammaan dadkii kasoo shaqeeyey hawsha qiimaha leh raggan dhalinyarada loogu diyaariyey macalinimada ee lahaa maxaan ku dhaha ama administration iyo maamul sida sheekh saciid iyo ragga la shaqeeya sida macalimiinta maaragtay soo diyaariyey in allaaleyntii kale ee ka qayb qaadatay taakulaynta najixinta maxaan ku dhaha mashruuca aad iyo aad iyo aad baad mahadsantahay. waxaa intaa ii raaca waxaa jira dhul aan ugu qoondeynay in masjid laga sameeyo baa jira oo lana jaara markaska hadda meeshuu markasku uu ka hawlgalo in badan baanu meesha waanu calaamadinay waanu eegnay in badan baanu dhawaan in badan waxaanu lahayn mashaayikhdii lagala xidhiiri lahaa ee maaragtay hawshaa gacanta ku qaban lahayd lala wada shaqayn lahaa sidii loo dhisi lahaa marka ilahay waxaan uga mahad celinaya maanta inaan munaasabada inaan ka soo qayb galno dhulkaasna aan ku wareejino markaska ubay bin kacb inaan ku wareejino oo midhihiisii hadda aynu arkayno wax badan oo kalena aynu insha allah tacaala dowraad kale ama dafcaad badan oo kalena ay ka soo bixi doonaan masjidkaas iyo markaskiisa iyagu ay qabtaan inaguna aynu kula wada shaqayno aynu guda iyo dabadba sidii maxaan ku dhahdaa meeshaas inaan u noqon meel masjid weyn oo mise jaamaca ka yareen ay ka dhismi karto iyo hadday doontaan kala ballaaran aynu isla eegi doono markaskii iyo maaragtay markaskana uu meelayn doono masjidkii uu meelayn doono masjidka waxaanu codsanaynaa masaajidka in uu yeesho meel habluhu ay ku tukadaan magaalada haddaan u fiirsanay anigu eegay dee waxaad arkaysaa ragga unbaa ku tukanaysa marka dawladaha haddaad tagto wadamada muslimiinta waxaad arkaysaa qayb dhan oo dumarku leeyahay ayaa masjid walba la socda marka waynu u baahannahay inaynu gabdhihii aada u dadaalayo diintii aada u baranayo sida hadda sheekh saciidnada uga mahad celinayay ama hooyooyinka sida inoogaba karti badan yihiin innaga wax walba inooga horeeyaan inay helaan meeshii ay ku tukan lahaayeen marka dhulkaasna waan isku wareejinaynaa sheekh aad iyo aad iyo aad baad umahadsantihiin ilahay waxaanu ka baryaynaa inuu khayrkaa inoo sii ballaadiyo inoo sii جزاك الله خير إلهي سبحانه وتعالى هبركيو آدي آد بان قد عيني الأخ الفاضل محمد حسن عثمان جزاه الله خيرا ووقفي كنا الداقي دولك وين مساجد كي مركز كبا إنه قادي دونا سلا مركانا أنكفو جي ميشو مركز كروي لي الدنيا آخر الله بركيو وقف جاري الله كاغدغو دنبغا كواد كبا الله ضافو إلهي سبحانه وتعالى نور على نور الله كسر جزاك الله خير يا قوماتي يا عبد الرشيد وقتك إنه العليا ماشى وكل لوجد ولي مرتي شرفتي بين كوتشرنا قبل هذه السوري ويلا أنت عصاها الله يوا ويدي صعنا ولي هذه دي ولا قدوسين دورا عدة السوري بتين هذين بين كذا لا يراي إمرو عنده دور يا علي عبد النور حاشي أو كم إذا كان عصت له قولنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدروا رسوا عن أمهات نقيا مهد مانتد إلهي أنا أبورتي المسلم من قدك أنت مركان كجدبو وعلى مركب وهر رئيسا واحد مود درجي إلى المشى كم موقن رجع وحاله هاي لعيت يرى على شيء يصدق كنا ما تقول نقيب سنة وكلا كيل ماين إنه الواحد سندت كأنه بدها شغل هالوجه قبيلة دبت الدياس براها عندنا يلا شوكتان وعلت هاي عاقلكي نوري محمد عمر سعيد دولية دور رمبا إيش يتغونسا تعال تقول إنه قايمين أنا طبعاً واحد بحنا يدك كأنه شوكة والمقدمين دي هاي نكذب لبعتنا وحنا ندري أن قبيلة دبت شوكة هذا يقعدوا دارته ولا كلام برانين بدنا كلام برانا بس أساسا إنه كلام يبسنا مسلم هذا مسلم لك البرارين فعويا والله عيار بقى عن مركل شو كمان كنت دور مركل هذا ويا رب الله تعالى لكن قولي أجا عنتنا ضرورية مركل قيبيو وحيار بين غنسة وحن عاد تقول يا ديران يا باهظة الدين على العين ودقال اللهين وحنا صعونا يا أنا وصلي لتاي
boqol qof keliya oo aynu iswada garanayno oo guddi yar loo qabto oo ka ugu sarreeya iyo ka ugu hoose wixii qofka ka badsanayo muraad waxaan filayaa inay maalmo ama saacado ay qaadan karayso si aniga ila tahay anuu aan u sheegay maan gabdhihi inay fadhiyaan baa laga yaabaa bacdii madan la markhaati dhigo masaajidna dhagax dhigo waxaan ku yidhi sanadka aan dhigno budgetka ardadaa ku baxaya aan bixino inta ugu horeysan anay kusoo qor inay fadhiyaan baan u malaynay laakiin macquul maaha nin 100 kun oo doolar 20 kun 30 kun oo doolar haysta in bil walba inta la yidhaahdo 10 doolar keen anigu siday la tahay ka badan bay naga baxa shaxaad bay naga baxda way luntaa waa la dhacaa cooy dadka lacagta haystaa lacagta ha bixiyo raggu ha qaato doorkiisa waxaan kusoo ururinayaa macquul ma in dalkan maskaxda naga guraan waxa la barto oo dadka lacagta ha la huro oo nafta ha la huro oo raggu mas-uuliyaddiisa ha qaato wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ay soo dhiibeen gabdhaha maxadka furqaan hadiyadahani waxay u qaybsan yihiin dhowr qaybood ardayda waxay isugu jirtay 21 arday 13 arday oo ka mid ah waa 13kii qur-aanka dhameeyey ugu sarreeyey waxay leeyihiin inta ugu weyn هيا سوكا شن كمية سوكا عرضيني ناسال قدوستان هدية قالقة اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران جزاكم الله خيرا وأماتيه رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أسعد به أبويك في أخراهما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر سي ساكن بس كسر سي بس ميم كسر مي ميم كسر مي باسمي اسمي ألف فتحة لام قام لام شد فتحة ألف مد الله ألف فتحة لام قام لام شد فتحة ألف مد الله 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 ها كسره ها كسره الله الله بسم الله بسم الله ألف فتحة لام قام را شد فتحة ها سكن راح ألف فتحة لام قام را شد فتحة ها سكن رح الرح الرح ميم فتحة ألف مد ماء ميم فتحة ألف مد ماء الرحمن الرحمن نون كسرني نون كسرني الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن ألف فتحة لام قام را شد فتحة را ألف فتحة لام قام را شد فتحة را الراء الراء حا كسر يا مدحي ها كسر مدحي الرحي الرحي ميم كسر مي ميم كسر مي الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم همزة كسر إي همزة كسر إي دال فتحة ألف مد دا فتحة ألف مد إذا إذا جيم فتحة ألف مد جا جيم فتحة ألف مد جاء إذا جاء إذا جاء همزة فتحة أ همزة فتحة أ إذا جاء إذا جاء نون فتحة صاد ساكن نص نون فتحة صاد سكن نص را ضمر را ضمر نصر نصر ألف فتحة لام قام لام شد فتحة ألف مد الله ألف فتحة لام قام لام شد فتحة ألف مد الله 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 ها كسره ها كسره الله الله نصر الله نصر الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي بين مهدنا تعديك
cid kastoo soo diyaarisay oo Saciid Axmed Badar ugu horeeyo ta kale dhalinyarada tan maanta taraag baan ahaa kelmada aan islahaa gaar u sii dhimaanada ku oranayaaye waxay noo ballanaa waqti baad cudhaadha ahaanaysaan marka nin waliba 30 nin oo sidaas uu soo saaro insha Allah cudhaadha waad ka bixin rag kale idinku soo gaadhaya laakiinse weligiin xidhnaan maysaan jaamacada ugu gudbi doontaan waqtigeeda ay ahaan doontaan dadaal baa kulligeen laynooga baahan yahay waa la bixiyey dhulkii gobolkan Sool waxaan aniguna ballan qaadayaa baraajka gobolka Sanaag dhulka ku filan masaajid iyo markasba dhulkaan anaa ballan qaadaya haddii la yiraahdo baraajka labaad waanu jecelahay in laga dhigo جزاك الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا وأقول لك لبعض ما أنت نوصل كرنا إلهي أبارك يا عبد الرشيد إلهي سبحانه وتعالى أنت مركز كوادرين ميسان وإلهي دراد الله بلا بواب القضاء وحفلة دقور رئيسية سدر وكلا وأنا دريمي كريسان بشاروين كلا وأنا مرة ودي شيء إن شاء الله تعالى ويجران جزاك الله خيرا عبد الرشيد وقت قابل أنت أصلا كوبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشاروين مهمة كو ساكا وأنو فنين حفلة ختام كا مركز كوبي بن كعب دفعتي سي كوبات وبشاروين نوع دعاء بدن يا خير بدنا أنو أركن إلهي سبحانه وتعالى ديننا دتك ولا لها كود واقعي مركز كود واقعي هولا بدن وأقول يا محمد حسن عثمان صنعت جزاه الله خيرا وبحية دولدان بقول وقلت لك على مساجده هي مركزيو وإسكالي إن شاء الله تعالى مركزكم معمول دونه تاصل إن شاء الله تعالى رونا عن بلن قاضينه إن أوشى سينغون دونتو حول قبل كون إن شاء الله تعالى كود فايد سندونا ثانيا وحادوا الله بعض الرجال كبلن قاضي وكوي أبو هيو بحيي إن شاء عبد الرشيد أحمد ورسامة إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله وصاره مراكزته وحرمنا ملكسته قارسينه مركز كوبي بن كعب qorshaha iyaga marka ugu horeysay aanu dejinay waxay ahayd inaanu noqon kaliya mid halka ku eg inuu magaalo walba iyo deegaan walba gaaro waxaa kaloo muhiim ah halkaan idinka sheegayaa qolyaha dibadaha rag baa ku dhawaaqay lacag waxaa ugu horeeya Siciid Guule Deere ilaahay ha barakeeyo $1,000 ayuu hawsha ugu dhawaaqay inuu ku bixin doono insha Allah ta'ala Siciidna waxaa leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saaro إلهنا وحي وسي وحكبر وبركة كبر الله سبحانه وتعالى وزيادي وأكلوا إسنا كل واقع $1 عبد الله حسن إسبانيش عبد الله إسبانيش ورجع قرب شوك توضياش مهم كنا ودبدا إنه شوكا $1 بكل واقع ما شاء الله ينوى بشارة هذا مهمة وهاجر يرجع عن هذا كل مقعد الحوجة عن شوي عن إسحنين أنا هبين ودينا كل كونفرنس بقول الشري كهالليسي وينا $1 كل واقعي ما شاء الله وعكروا شرا سعيد محمد إسماعيل عبد الكريم وحويان رجل الله شقيا سيدا محمد عمر حسن وينا سيدا سوكله ورينا وجود شري مركز كهوشيسا هذا بلان قاضي إني قيب لي وحكي قاضي دوران deegaanka ama dadka magaalada dhulka jooga waxa weeyaan waxa ugu horeeya oo isna $1 ku dhawaaqay Cabdirasaaq Axmed Warsame Dhabayaco inuu insha Allah ta'ala $1 uu markaska ku bixin doono Daakir ayaa isna insha Allah ta'ala wuxuu ku dhawaaqay inuu ku bixin doono waxa kale wali ay u furan tahay biidilaahi ta'ala waxa weeyaan intaas waa $5,000 waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala anagu waxaanu rabnaa muddo bila in markasku fasaxnaado bishaana lagu helo qodobka koobaad in la dhaqaalihii oo aan rabnay in account-inta lagu shubo wixii ka dambeeya qofkii isagu wax sadaqaysanaya waa meesheeda laakiin biilka iyo nolosha iyo kirada iyo macallimiintaba xawaalada looga soo saaro insha Allah ta'ala ardaydaas waan la isku wareerin biidilaahi ta'ala qodobka labaad muddada bisha aan ku soo xullo lagu soo imtixaamo lagula soo ballamo dadkii dafcada labaad ka qayb qaadan lahaa oo shuruudo badan leh haddii ilaahay yiraahdo marka intaasaan rabay ogeysiisyada inaan idiin sheego
yahay waa gunaanadkii iyo gabagabadii baynu maranaa iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan dadweynaha isugu yimi golahan sharafta leh waxaan jeclahay qof waliba isagoo meesha uu xurmada ka leeyahay ka qaadanaya inaan ku salaamo salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin raacin lahaayoo keliya macallimiintii iyo maskaxdii ay ka soo baxdayba waxaa la yidhi nin durbaantumay laaq dalbay idinkaan wax fiicanna tusaye waa laydinka sugaya anigaa kusoo xoranaya maxadkaan maanaya cashadow marba haddii 8 biloodba lagu xafidayo dee waa in dee dadka waaweynna meel loo baneeyaa aniga layga bilaaba. tan kale ardayda waxaan odhan lahaa soo baxday ardayda waxaa lagu celceliyey waad qaamaysantihiin ma idin qaamoobine tolkiin baa wax idin bartay dadkiinnibaadna wax baraysaa taa ku talagal. ardayda taasaa والدين تودع وأنا ما أتكلم عن بيتي وأنا كنت صور شر بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم أرضي يوم يا جماعة أحمد وسام دار القرآن يوم صحتك. خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. صدق الله العظيم. There is no man more dear to me throughout the whole of history than the one who was sent us. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. بتعلمني وبتنسى يا بابا اللي قلته وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. ما تزعل مني يا بابا يا عيوني وأغلى. بابا تليفون علموه